بسم الله الرحمن الرحيم كسو دواad wararka ciyaaraha caawa fadlan jinaada ku cusubtahay subscribe sar jambalka furo si aad u hesho muuqaal baan soo gelino UEFA oo go'aan ka gaartay mustaqbalka Champions League iyo Europe League kooxaha Manchester United iyo Chelsea oo isku soo haray baaxsiga Jadon Sancho kadib go'aankii Liverpool. Juventus oo bedelka Ronaldo ka ishaaraysa Barcelona maxaa soo kordhay kusoo dhawaad wararka ciyaaraha oo dhameystiran. Xiriirka kubadda cagta Yurub ee UEFA ayaa si rasmi ah u xaqiijiyay in la joojiyo tartamada Champions League iyo Europe League iyadoo waqti dambe la soo saari doono waqtiga la ciyaari doono tartamadaas. Laakiin wargeyska Mirror ayaa fahamsan in UEFA doonayso in la ciyaaro tartamadaas marka la dhameystiro kulamada horyaalada xilli ciyaareedkan. Waxaa intaasi sii dheer in kulamada Champions League iyo Europe League lagu ciyaari doono taageero la'aan inkastoo ay kooxuhu diidan yihiin. UEFA ayaa sidoo kale xaqiijisay in gebi ahaan la kansalay kulamadii xulalka ee la ciyaari lahaa bisha June iyada oo aan la ciyaari doonin waqti dambe. UEFA ayaa warbixintaas ka soo saartay dhammaan kulamada la xiriira 2020-2021 ee tartamada UEFA waa la joojiyay ilaa waqti dambe. Wixii la xiriira xidigaha kubadda cagta iyo xiriirka kale waxaa la soo saari doonaa waqtiga soo socda. Kulamada xulalka ee ragga iyo dumarka ee la ciyaari lahaa bisha June waxaa la joojiyay ilaa warbixin dambe laga soo saari doono. Waxaa kulamadaas kamid ah isreebka tartanka Euro 2021 ee ragga iyo dumarka. Kooxaha Manchester United iyo Chelsea ayaa foolka fool ugu tartami doona saxiixa xidiga Jadon Sancho, laakiin labada kooxood ayaa bixin doona lacag dhan 100 milyan oo euro. Borussia Dortmund ayaa xiisaha Yurub u qabaan xidiga oo isticmaalaysa inay lacag fiican ku hesho, laakiin waxaa jira kaliya laba kooxood oo Premier League ah kuwaas oo ku tartamaya saxiixa xidiga. Liverpool oo muddo dheer lala xiriirinayo saxiixa xidiga ayaa si rasmi ah uga baxday tartanka iyaga oo aan dooneynin in ay bixiyaan lacagta 100 milyan ah. Arrintaas ayaa la macnaha in Chelsea iyo Manchester United yihiin kooxaha ku tartamaya saxiixa xidiga. Si kastaba ha ahaatee, labada kooxood ayaan ogoleen in bixiyaan lacagta ay Dortmund dalbanayso maadaama ayna lacagtaas u arkin mid uu u qalmo xidiga 20 jirka ah. Manchester United ayaa haatan la xiriiray wiilka xidiga, laakiin ilaa haatan waxa ay diidan yihiin inay dalab rasmi ah ka gudbiyaan xidiga. Chelsea ayaa dhanka kale la xiriiray xidiga, laakiin waxa ay si cad u sheegeen in ayna bixin doonin lacag dhan 100 milyan oo euro. Juve oo ka baaraandegaysa bedelka Ronaldo kaasi oo laga yaabo inuu ka kululaado kooxdaas marka xilli ciyaareedka uu dhamaado. Sababta Ronaldo oo u baxayo ayaa lagu sheegay in kooxda ay ku dhibaatoonayso bixinta mushaarkiisa qaaliga ah xilli dhaqaalaha kooxda uu saameeyay xanuunka coronavirus. Calcio Mercato ayaa sheegay in Juventus ay haatan bedelka Ronaldo ay ishaarteen kooxda Barcelona waana xidiga Antonio Griezmann. Waxa uu heshiiskiisa Barcelona dhacaya dhamaadka xilli ciyaareedka 2024, balse Juve ayaa arrintan jalaq uma siinayaan xilli laacibka qudhiisa lala xiriirinayo inuu baxayo. Kooxaha kale ee isha ku haya Antonio Griezmann waxaa kamid ah kooxaha Manchester United iyo PSG. Waxa uuna laacibkii hore ee Atletico Madrid la kulmaya dhaleecooyin ah in uusan muujin qiimaha laga soo bixiyay. ciyaaraha caawa la socotay jinaatan enjoy official waxaan yidhi siyaasiyo nabadgelyo.